Assalamu alaikum, it's me, Amir Ziki, you know me? Commentiga noogu soo qor aad iyo aad ayaad mahadsan tahay. Sheekadan ammaantaydii wada waxaa lagu magacaabaa jin ayaa dilay odaygaygii amba jin iyo caashiqe aniga ayaa dilay odaygaygii. Waa dhacdo la yaab leh oo ka dhacday wadamadaasi Carabta, taasi oo wadankaasi ay ka dhacday ay aad caan uga tahay sheekadani. Haddaba intaana aanan bilaabin sheekada waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe noo saartid noona share garaysid si uu meel dheer u gaadho. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Haddaba qisadan waxay ku dhacday gabadh yar oo lagu magacaabi jiray Culaa. Haddaba Culaa waxay ahayd gabadh yar oo ay hooyadeed dhimatay taasi oo uu soo korsaday aabbihii dhalay Culaa. Haddaba Culaa waxay ahayd gabadh aad u degan oo waxbarashadeeda meel aad u fiican u marayso. Haddaba inantii Culaa ahayd oo nolosheedii ay aad u fiican tahay oo aad u kala fadhido ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa u yeedhay aabbaheed waxaana ku idhi. Haddaba Culaa aabbaheed markii uu u yeedhay ee uu meel gaara fadhiisiyey ayaa inantii Culaa ahayd waxa uu aabbaheed u sheegay war aan farxad gelin gabadhii Culaa ahayd oo waxa uu ku yidhi. Waxa uu u sheegay aabbaheed in ay la gaadhay xilligii ay Culaa ay guursan lahayd amba aad guursan lahayd ayaa uu ku yidhaahday Culaa aabbaheed. Haddaba inantii Culaa ahayd sheekada waxay moodaysay sheeko yar oo aad iskaga fudud. Deeta markiiba aabbaheed waxay ku tiri aabba insha Allah waa guursan doonaa marka xilligeeda timaado. Aabbaheedna haddaba waxa uu ku yidhi waxaan xitaa aan kuu diyaariyey ninkii ku guursan lahaa isla waqtigan. Waxa kale oo uu ku yidhaahday xitaa waxa aan la hadlay oon isla meel dhignay waalidkii dhalay inanka oo waxaanu ka warsugaynaa waa adiga. Kaliya waxaa dhiman inaad kulantaan inanka oo aad si fiican isku fahantaan ayaa uu ku yidhaahday Culaa aabbaheed. Haddaba dhaqankan ah in uu aabbuhu dhammeeyo arrinka guurka inanta waxa weeyaan arrin aad caan uga ah wadamadaasi Carabta oo waa la iska wada ogyahay waxaan ku yidhi waa geeri go'an. Haddaba gabadhii Culaa ahayd aad iyo aad ayay uga cadhootay aabbaheed arrinkaasi uu sameeyey waxaana istiri ood ka fahansiisaa amba aad ka dhaadhicisaa in uu arrinkan dib u dhigo. Oo weli waxay tiri anigu weli waxbaan bartaa oo waxbarasha ii socota markaa guur iyo waxyaabahaasi kama gaadho. Aabbaheedna wuxuu ku yidhaahday arrinkaasi mid soconaya ma aha marnaba Culaay. Haddaba gabadhan Culaa oo ahayd dadka aan waalidka aan ku afcelin oo cadhadooda caloosha iskaga haysta amba qalbiga sidaad u taqaanidba ayaa markiiba way iskaga aamustay oo way iskaga tagtay aabbaheed. Weliba aabbaheed waxa uu intaasi u sii raaciyay markay sii kacaysay in ay soo socdaan reerkii inanka oo ay ku soo wajahan yihiin cabaar ka bacdi oo guriga ay iman doonaan. Waxaana ku yidhaahday waa inaad beritoole reerkaasi aad ku soo dhoweysaa farxad dhoola caddayn soo dhoweyn fiican waa inaad u samaysaa. Haddaba Culaa qolkeed bay iska tagtay iyadoo cadhaysan waxay hor istaagtay muraayaddii. Waxa ay ka fikiraysay marka ay muraayadda hor istaagtay qorshihii uu arrinkani ku baaqan lahaa guurkeeda in cabaar ah. Markii ay ka fikiraysay arrinkani ayaa ugu dambeyntii Culaa waxa u soo baxday fikrad aad u la yaab badan. Arrinkaasoo ahaa ay Culaa ay ku fikirtay oo ahaa in ay make-up-ka si xun u marsato oo ay markay aabbaheed intuu arkayo ay make-up-ka si hagaagsan u marsato balse marka ay imaadaan reerkii soo dooninayay iyada ay make-up-ka gebigeedaba kaga waasho ay kaga dhigto shimbir reedkeed. Haddaba reerkii markay ay sidaas u yimaadeen ee albaabkii laga furay ay soo fadhiisteen ayaa sidii caadada ahayd Culaa waxay u keentay dee waxa ay cabaan iyo shaax iyo waxbay u keentay. Deeta markaasuu Culaa aabbaheed waxa uu ku yidhaahday soo fadhiiso adiguna. Labadii reer markay saasi isku hor fadhiisteen
sheekooyin caadiya iyo dee kaftan iyo waxbay saas isku dhex galeen, si fiican bay isku dhex galeen oo way wada sheekaysteen. Haddaba gabadhii Culaa waxay dareentay in aabbaheed uu inanka aabbihii iyo inankuba inay si xun u soo eegayaan iyada. Deeta markiiba waxay istiri qorshahaagii uu ku hirgalay oo reerkan inanka ka soo jeedo iyo inanka iyo aabbihiiba kaamay helinba totally sida make-upka aad u soo marsatay, markaa qorshahaagii si fiican buu ugu shaqeeyey. Haddaba in yar ka bacdi markii ay sidaasi istiri ayaa haddana waxay aragtay iyaga oo qosqoslayo oo iyada aabbaheed Culaa aabbaheed iyo inanka aabbihii ay iswareysanayaan oo Culaa uu ka wareysanayo. Deeta arrinkaasaa fajac la noqday inantii Culaa ahayd. Ugu dambeyntii haddaba kulankii labada reer si fiican buu kusoo dhammaaday oo si fiican baa laysku dhex galay. Ugu dambeyntiina waabay iska tageenba. Haddaba Culaa aabbaheed ayaa arkay inantii Culaa ahayd oo waxaan ku yiri wejigeeda murugo aad u fara badan uu ka muuqdo. Deeta wuu soo dhawaaday wuxuu ku yiraahday aabbo waad ogtahay dee inaan kaligaa ku haysto, markaa waxaan doonayaa inaan carruurtan awowga u ahay inaan arko, markaa waa inaad arrinkan aad igu tixgelisaa oo ninkaa aan kuu doonay waa inaad guursataa buu ku yiraahday Culaa aabbaheed. Hadalkaasi markii uu sidaasi ugu yiraahday Culaa, inantii Culaa ahayd way soo dabacday oo naxariis baa gashay. Deeto markiiba waxa ay aabbaheed ka wareysatay nolol maalmeedka wiilkan uu ku darayo. Deeto markiiba aabbaheed markii uu hadalkaasi sidaasi u maqlay inantiisii soo dabacday markuu saasi u maqlay, run ahaantii farxad aad u weyn baa wejigiisii ka muuqatay. Haddaba Culaa markii uu aabbaheed iyo iyadu isla hadleen toos bay waxay u gashay qolkeedii. Deeto markan haddana waxay hor istaagtay muraayadii, laakiinse sidii markii hore ay u fikiraysay ee khaldanaa umay fikirin oo waxay islahayd bal guurka iyo arrimihiisa bay ka fikiraysay. Yacni bal qofku markuu guursado ee inanta la guursado xaaladeeda bal siday noqonayso iyo wicigeeda iyo waxaas ayaa isweydiisay gabadhii Culaa ahayd. Markii ay arrinkaasi si fiican uga fikirtay ayaa waxay soo qaadatay koob shaaxa, bakeeri shaaxa. Deeta waxay iska dul fadhiisatay sariirteedii oo waxay saartay komadiinka shaaxii. Koobkii shaaxa ahaa marka ay sidaasi u saartay gabadhii Culaa ahayd, koobkiiba hal mar dhulka ku dhacay. Deeta markiiba way carartay oo waxay u tagtay aabbaheed. Haddaba markii ay sidaasi u carartay ayaa waxay soo qaaday maro amba waxa ay ku masaxdo shaaxan daatay. Deeta markii ay sidaasi u masaxaysay gabadhii Culaa ahayd waxay dareentay hal mar wax madaxa amba garabka sidaas uga taabanaya, hal mar bay sidaasi u soo jaleecday. Halkii dambe markay sidaas u eegtay wax taagan markay weyday ayaa waxay istiri mala adiga wax u maleeyo timahaagii baa ku taabtay oo waxba nacnimo jiraan ayaa shakiyey. Deeto ayaama ka bacdi markii ay arrintaasi ka soo wareegtay muddo ayaa haddana waxaa soo booqday reerkii wiilkii loo doonayay gabadhii Culaa ahayd. Deeta reerkani wax kale ugumay iman, laakiinse waxay ugu yimaadeen inay soo booqdaan. Deeta markan waxay u keeneen hadiyado. Hadiyadahaasi markii ay tageen ayay yacni guri qolkeedii la gashay oo furfurtay. Hadiyadahaas waxyaabihii ku dhex jiray waxay ka heshay moobil yar oo yacni kan aad arkaysid kaasoo kale ayay ka heshay. Deeta beriga yacni dee dad badan moobilada may sideen oo si fiican buu soo jiitay hadiyadaasi. Haddaba gabadhii Culaa ahayd oo moobilkii sidii u xiiseynaysa ayaa waxay toos u gashay suuliga oo shower ku yaal halkaas iskaga soo meeratay. Deeto waxay markii ay suuliga saas uga soo baxday isticmaalkan dayra isticmaal ayay waxay aragtayba inaanu moobilku meeshiiba oo la sariirtay dul saartay. Deeto way raadisay wuu weyday naag. Deeto qolkiiba yar baadhayadu way ka weyday albaabkiiba istiri haddaba fur. Albaabkii markii sidaasi u hor istaagtay istiraahday fur, albaabkiiba ma furmaayo oo dushuu ka xidhan yahay. Deeto waxay istiri kaale hadda moobilkaagu tagay aan xaga saaray imika.
deeta iyadoo kadinkii sida u taagan haddaa sidaa iyadoo u taagan unbay hal mar waxay maqda un sariirteedii wax sidaasi uga xashaashaqayo oo daasu haya way naxda gebigeedii buu qabowday gabadhii culaahay. Haddaba gabadhii culaahayd oo markeedii horeba wadnuhu go'sanaa oo naxsanayd ayaa hal mar unbaa laambadii qolku baktiday dam. Deeta markii ay sidaas u baktiday ayay waxay istiri laambadii shid innaga taxwi u shidma weydiba. Deeta way qaylidayo marka aabaheed oo guriga halka hoose joogay baa soo cararay. Deeta markii uu saas ugu yimaaday ayuu ku yidhi albaabka halkaa uu ka xidhan yahay ka fur. Deeta inantii khalkhalsan baa markaas albaabka way furtay. Deeta waxay ku tiri aabo iyadoo qaylinaysa aabo gurigan jinni baa igula jiraa bal waa taasee laambada waa taaseba shid. Deeta odaygii naxsan baa isagana wuxuu yidhaahday laambada shid. Laambadii markuu sidaasi u shid laambadiiba caadi bay iskaga shidantay. Deeta aabaheed baa ku yidhaahday aabo waxaa marmarsiyo aad goorka ku baajisaad rabtaaye aaba nigada waxaana marmarsiyaa goorkana wuu dhacayaa insha allah. Gabadhii yaabun boqolkeed iska soo gashay. Haddaba gabadhii culaahayd markay weyday si ay ku qanciso aabaheed qolkeed bay iska gashay sidii baana arrintii ay deenani ku looday. Haddaba ayaama ka bacdi haddana waxaa dhacay meherkii oo inankii ayaa mehersaday inantii culaahayd. Deeta markii meherku dhacayay ee sheekhii laisku meherinayay meesha yimaaday ayaa gabadhii culaahayd hal mar unbay hawada ka baxdeen huf qof dee xawilan unbay noqoto indhaheedu meel khaasa eegayaanoo shib maba hadlaysaba. Deeta sheekhu baa ku yidhaahday guurkan ma ku qanacsan tahay inuu wiilkani ku guursado. Inanti way dareemaysaa inuu sheekhu la hadlayo laakiinse maba soo falcelinayso waaba saas u soo fiigantayba inantiiba korontada dhan baa ka tagtay. Deeta hal mar unba aabaheeda dul taagnaa waa saa u gujiyey. Deeta inantii waxaad moodaa qof hurdo oo markaas hurdada laga soo kiciyay siduu usoo boodi lahaa unbay usoo booddo ma tiraahdoon ha waa ku qanacsana. Deeta markii sheekadaasi dee lamaasi buunbuunin oo waxaa layis yidhahdaa inantu way xishoonaysaa xishoodba waxaan ka keenayo wax kale ma jiraan bas yidhahdaa sidii baana meherku ku dhacay. Haddaba sheekad markii halkaasi marisay gabadhii culaahayd waxay iska tagtay gurigoodii deeto qolkeed bay isa gashay. Waxay qolkii ugu timi moobiilkii hadiyadda loogu keenay oo halkii ay maalintii dhigtay ay ku weyday isaga oo saaran oo aan barba qabin oo sidiisii bara u ah. Deeta way yaabtay. Deeta xijaabkii waxay bay iska bixisay oo qolkii waxay isa gashay suuliga oo waxay iska soo meedhatay. Deeta iyadoo suuliga ku jirta ayuunbay hal mar waxay dareentay sanqadh qof soo galaya gurigiisa u dhex marmaraya. Deeta waxay tiri mala waa aabaha. Deeta waxa culaa aabaheed markuu qolkeeda soo galayo uu soo gargaraaci jiray laakiin waxay tiri maanta uu ilaaway iska daayo. Deeta markii ay saas in yar cabaa dhowr siki markii sanqadhaasi maqashay unbay hal mar waxay maqashay wax si culus oo dhulkii ku dhacayo idhaahday dam. Inantii way yaabtay waa carartay waxay tiri mana aabaha bay wax kusoo dul dhacay. Qolkii bay tagtay oo mise waxba ma yaalaanba qolkii aabaheed bay tagtay mise aabaheed qolkaba mababa joogaba. Qolkeedii iskaga soo laabatay. Deeta waxay aragtay wax ka yaabiyey waxaasoo ah moobilkii loo soo iibiyey hadiyadda lagu keenay ee iminkadan xagga saaranayay aan barba qabin isaga oo burburka aad moodaysid inuu waxaan ku yidhi buurtii adduunka ugu dheereed ka soo dhacay oo disbaleygii iyo wixii oo dhan dhisaa u kala daadaadsan yihiin bay aragtay inantii culaahayd. Deeta way yaabtayba. Haddaba gabadhii culaahayd iyadii oo naxsan ayay dee waa iska indho tirtay waxaan meesha ka socday inay dee way arkaysaa in waxaan ku yidhi wax kale yihiin. Adigu arrinka sidii saasi ku socday waxay soo dhawaatay xilligii guurkeeda dee guurka iyo meherka horeeya guurkana in yaro muddaaba loo kala dhexaysiiyey. Deeta guurka inta ayaama yarma isagoo ka harsan yahay guurkii ayaa inanta waxaa ku bilaabmay dhacdooyin aad u la yaab badan oo xitaa iyada laftarkeedu waxaan ku yidhi madaxaasi ay qabsatay. Inantii culaa waxay aragtay ayaama ka bacdi intay subaxii soo toostay oo istiri dee iska soo cadayo suuliga isaga. Deeta suuligii markay saas u gashay ayaa muraayadda lagu cadayday dee saasi marka la foodhaqanayo da laysku eego ayaa waxay ku aragtay wax qoraal wax cas sidaasi loogu qoray. Deeta qoraalkii bay istiri akhri
qoraalkii mise way fahmiba weyday inantii. Dabeetana waxay istiri talo waa maxay waxaan lagu qoray cas. Dabeetana waxay dhulka ku aragtay waxaan la marsaday habluhu marsadaan xamuurada miyaa la dhahaa mise labista iyadoo dhulka sidaasi u taallaa. Dabeetana way iska soo qaaday way dabooshay meel bay ku dhex riday. Haddaba maalintay qoraalkaasi ku aragtay muraayadda maalinteedii ku xigtay maalintii hore waa tii intay ka baabisay bahashina ay ku dhex riday meelo dibadaasi kusoo tuurtay. Dabeetana maalintii kale ku xigtay ayay markay istiraahday soo codayo ayay haddana waxay aragtay qoraalkii isla sidii uun ku qorano xamuurad bahasha labistina ay dhulka taalo ama kaagayantii culaha ku dhacay way yaabtay. Dabeetana way ka masaxday bahashii bay soo qaaday. Dabeetana waxay ku soo tuurtay meel aad u fog. Waxyaana kuugu soo dhawaanba meel fog bay kusoo tuurtay. Maalinta ku xigtay bay soo toostay bal waxay istiri inuu qoraalkii ku qoran yahay bal eeg. Suuligii bay furtay albaabkii markii saasi u furtay unba muraayadii bay saa waagtay. Ilaahay xamdigii meeshu waa nadiif oo waxba meeshu kuma qorna. way yara fadhiisato way waxaan ku yidhi markii hore iyadoo naxsan bay soo booday moogta. Haddana maalintaa ku xigtay wax la yaab la dhacay. Haddaba habeenkii ku xigay gabadhii culaahayd way seexatay. Markii ay sidaas u seexatay waxay ku riyootay riyo aad u la yaab badan. Riyadaasi ahayd oo waxay ku riyootay qof wejigiisii. Dabeetana qofka wejigiisa si fiican umay arag. Ma jirtaa markuu qofku hurdo oo qofka ku riyoonayo aan wejigiisa si fiican aan u arag. Yacni inantii Ilaahay qofka wejigiisa si fiican umay arag. Dabeetana iyadoo isla riyadii ku jirtay haddana waxay aragtay qoraal ku qormaya qolka muraayadii suuliga ay ku cadayn jirtay ee hadda ka hor qoraalka lagu qorayay. Qoraalkaasoo ahaa inaanay guursan ninkan oo yacni qoraal uga digaya inaanay guursan. Dabeetana inantii naxsan xitaa ma arkayso waxa qoraya qoraalkan. Meeshu way maran tahay wayna arkaysaa qoraalka meesha ku qormaya. Dabeetana way soo booday iyadoo naxsan qoraalkii bay istirmay meesha ka eeg waxan waa riye. Markay qoraalkii meesha ka eegtay mise qoraalkii ugu qoran yahayba. Dabeetana waxay istir wixii lagu qoray bal raadi mise meesha ma yaalaan. In yar ka bacdi haddana waxay dareentay xanuun bay ka dareentay gacanteedii sidaas u eegtay. Mise gacanteedii baaba dhiigayso meesha waxaa lagu qorayba waa dhiigeedii. Haddaba ayaama gabadhii waxaa dhacay guurkii inanta ehelkoodii qayb ka mid ah tagay aroos yar iska normal ay dhigteen. Inankana waxaa imaaday qaraabadoodii sidii caadada ahayd labadii family baa arooskii imaaday. Arooskii si fiican buu iskaga dhex dhacay. Haddaba markii guurkaasi sidaasi uu u dhacay ee guurkii dhammaaday ayaa haddaba waxaynu maraynaa halkii ugu xasaasisanayd meel la dhihi jiray sheekada. Subaxii dambe waxay gabadhii culaahayd soo garaacday ambalaasta. Xitaa gurigii baa lasoo degayaa. Guurkii markuu dhacay maalintii ku xigtay. Markii uu sidaasi guurkii u dhacay maalintii ku xigtay gabadhii culaa waxay la soo hadashay ambalaasta. Dabeetana ambalaastii markay sidaasi u timid ambalaastii waxay aragtay dadkii la socday waxay arkeen ninkii guursaday culaa oo cunusa u kala waran yahay. Dhiigga meesha isxidhay. Dabeetana gabadhii culaahayd baa markiiba waa ciidankii la garaacay. Ciidankii baa meeshii imaaday. Dabeetana waxa lagu yiraahday maxaa ku dhacay gurigii baa la baarbaaray in balmididii ay ku qashay ninkan iyo waxa meeshii baa la baarbaaray innaka tax waa la waayay wax ay ku dishay ninkan. Dabeetana waxay ciidankii uga sheekaysay qisadii ay arki jirtay waxyaabihii ay arki jirtay. Dabeetana waxay ku tiraahday shaydaankii wixii baa lagu sheekaysayo. Dabeetana adigu wixii waa laga rumaysan waayo ciidankii wixii ku yiraahday sheekadani dhankaagii ka socotaa dhan kale kama socoto. Gabadhii culaahayd waxaa la dhex dhigay saldhigaasaa lagu hubsaday. Adigu gabadhii culaahayd markii sidaasi saldhigii loogu xidhay ayaa waxay qisadeedii uga sheekaysay gabadh meeshaasi kula xidhnayd. Gabadhaas adigu sidii bay uga sheekaysay. Gabadhii adigu ayaama ka bacdi waa la soo fasaxay gabadhii ay uga sheekaysay sheekadaasi. Dabeetana iyadna sidii ay uga sheekaysay bay uga sheekaysay laakiinse cid aamintay
ma jirto sababtoo ah ciidan waxa aaminsanayeen dadku gabadhan cula ahayd kumay qanacsanayn ninkan inay guursato. Sheekada waa sheeko la yaab leh. Waxaan ka codsanayaa channelka subscribe noo saarto xaggaas sheekada ku dhamaatay. Aad iyo aad baad u mahadsantahay.